maadaama hata aatiin ardayda dhamaystay Bank and Finance Jaamacadda Salaam University waxa diyaar u tahay inay sameeyaan isbedel muuqda oo ku sameeyeen bulshada naftiina ku sameeyeen marka IBS bangi waxa iyaduna qayb ka tahay dadka oo developmentiga ama bulshada saameynta ku leh oo ah inay ardada ay horumar ku sameeyso oo ah fikradaha ama ay waxyaabaha ay ka aaminsan bangiga inay baahiyooda ka qabtiraan taas ay badan IBS u taagan tahay mar walba waa u mahad celinaynaa bangiga IBS maadaama ardaydeena ay noo siiyeen fursad ah in bangigooda ay ku qaataan internship maanta inaanan lagu soo koobi karin amaanta iyo dhiirigi aan u hayno IBS bangiga IBS meeshaan maanta lagu soo koobi karo bangiga IBS wuxuu ka mid yahay bangiyada ugu waaweyn ee ku yaalo dalka Soomaaliya ku yaalo ka mid yahay iyo adeegyada uu qabto bulshada waxaan isleeyahay bangigan adeegyada bulshada uu haayo iyo sida uu isku xil saaray bangi iskaga xil saaray inuu jiro u maleeyma macnaha waxaan noo suurageliyay in barnaamijkan aan helno jaamacadeena iyo IBS bangin oo ayadana fursadaas u soo bandhigtay tradingka inta uu socday waxaan faa'iidnay duruus badan duruustaas oo muddo 4 sano aan noo soo sheegay si maqal ah balse aan aragnay si practical ah IBS bangi wuxuu si fursad ahayd annagoo qarash nooga bixin kaliya aqoonteen waxyaabaha ku saleysan inay training nagu siiyaan wixii 4 sano aan qaadanaynay